قرية قوة TV برنامجنا دعوة يا روح إنه مرتي أمانة جلاء دائر وكنا الحافظة يسلي ولهذا مجلس أرماجو جلاء قاس أي وحاء الحرية يسقو دائر ولن يراها سودان كلا جلسان يسقى أيه سودان كذا إنه كفر قيدنا برنامجنا جلبت فنك إنه سودان تنا دعوة شوعة أي مركز اللي أنا هاي كسر دمو أبوان أرماجو وكله ما سنة أفكار أنا مدن أرماجو بل واحد وشيك دعوتها دعوتياشا مجمع وسطح. بسم الله الرحمن الرحيم. مجمع وسطح وحال لها محمد جامع بلالة. محمد جامع بلالة بل واحد وحير نظر متاسك هذا تاريخ نولد كاي بشر كلالتي صوبر بارتي أقوى فاي. وما سنتاي مرلبات. أنا وقت وحكود شيء. dalkeena Soomaaliya gaar ahaan gobolka Sool baan ku dhashay marka halkaas waxaan ku qaatay dugsiga hoose ilaa kii sare halkaas kaga soo baxay marka Armaajo goorma kuugu horeysay oo isqaatay inaad aqoonto wallahi niyo ilaa yaraantay way jireen maraan wax iska sameeyay okay xilliga laakiin kuugu horeeyay waqti cayiman ma jira oo aan hadda xusuusato wuu jiraa laakiin bariyo hore adigu ma daneyn jiraa laakiin waxaan bilaabay inaan daneeyo aan daba galo aan ogaado inaan si fiican wax urin karo waxaan ogaaday adigu 2012 sax marka waxaad culisay xilligaas maasa is haysata maasadaas ma xasuusta maasada haa wax xasuusta waxa la dhahaa maasada magaceeda anigoo dhalaan oo baa la dhahaa okay maasadaas maxaa kugu kalifay ama macna noocay ay ka turjumaysaa wallahi waxay ka turjumaysaa horta maasadaasi dhinaca waddaniyadnimada maraan joogay xiriyaha qaxootiga dhadhaab baan heestan qise ka sameeyay aniga qabsatay okay أي بل ما ينظر مركبة ها أني قدلانو دور سني تبنشرا ولي دفنكي أمبران بيدو فينو دول شيء ليكي دولكي أي إجين دومشان كتوغا دنا أمدباقو تدبان دحجوغا marka aan dhaqaaqaba dhalashay I weydiin dhamankaaga anigii dadka faara way helay waxaa iga barbaarana aan idinka digayaa ninkii dhoofku maqanow dhulka hooyo soo aad dhulku waa dhulkeennii waana dhaxal awowgeen waan ku dhaaranaynaa deman iyo luul iyo khayraad dabeeciya shidaal baa dhex yuurura aan wax loo dhigaa jirin wax la dhaafsadana male dhallinyaroy dhagaysto dhagihiina ii fura dhulku waa dhulkeennii innagaa u dhalane madka dhicisan cadowga dhuuraanaya xeebtii intaasay maraan joogay xerada Hagadheer baan dib la kulmay waxaad soo aadaa magaalada Nairobi marka jidkiiba caqabado badan sharci keen dhalasho keen adigu askarti waan isku wareer marka waxaan ogaaday qofna dhulka hooyo inaan wax u dhaameysan jirin dhulkiisa markaas
dadkii maadaama oo wadanka cunana ka dhaceen Si fiican. wada qaxay wadamada la tagayana sharciyadooda la haysanin amniga lagu nool yahay iyo khaasatan wadanka la joogna ee Kenya oo aad dadaab ka magacada aad iyo aad baad u mahadsan tahay ilaa iyo xeerka ilaa saacina aad alaamo tahay deegaanka argay والله waxaan rajaynayaa heer fiican ka gaaro okay ma jiraan koox fan oo aad ka tirsan tahay koox way jirtaa ha kooxda waxaa lagu magacaabaa kooxda dhaqan sidi inta Nairobi ka aasaasan waxaa gudoomiyay nooc yar la dhaho Subayri ما شاء الله سؤال كنا في الدنيا واحد قبل واحد كذا عام في الصين قات ها way jirtaa قبل كان قات حلمات والله gabaygan iminka wuu cusub yahay صح hadda 2 casho baa ka soo wareegtaan malaynay اوكي ونسوق على العشاء نسوق ha maxaa isaga sabab oo kugu qalbina saniyo sababtii way iska caddahay oo waad aragtay dadkii Soomaaliyeed iyo dalkeeni diyaarada caleena la geeyaa maalin walba hadhow iyadoo dollar ay soo laabataa marka dadkii Soomaaliyeed dhalinyaradii iyo dumarkii iyo dadkii dhamaanba qaadka oo bay ku foornaano bahalkaas lagu fool lagu diro marka halkaas ay sidoo ka hadlaysa armaajo bad gobayga ay la daawayaasha bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore ana qaadka gabi u tiriyay hadhowna sigaba isu qaadka wali soo jawaabay marka waa qisaaniyo qaadna dhex martay soo jawaabay waa sheekaysanaa marka waxaan idhi qaadi howsun baa tahay sixir iyo fal baa tahay geed sumaysan baa tahay maantay diyaarado dalka yaga ku keeneen dadka yagi iswada laa dalka yagi gubtoo ulul dabkan baxay adaa shiday dumarkii iyo carruurtii danahood ma aadaan adigay ku daaqaan sidii duunyo xoolaad orodoo danayso dalka noo ammaan geli orodoo danayso dalka noo ammaan geli ana intaa ku dhahay marka isaga degdeg igu soo jawaabay ilaa waan wax isku ogi marka wuxuu dhahay isagiina Soomaali wiilow sacsaciyow si ii maqal Soomaalidu damiir male dareen iyo wax garad male sidii dameera caws helay marka ay idaaqaan anna dawlad iyo dahab dalkaygaan u soo celin oo dakhligaan horu u marin orodoo daftaf hayla soo gelin haygu dirin dadka i jecel tabin baan u soo dhigay yani waa soo khaldayaa dadkan adigu haygu ka kicin dadkan iska hortay duulay sababteedu way iska caddahay abana maanta waxaan ku diin marka qoranayso qabo badan oo kala oriyaa si fiican iska raadiyaan oo intii yaqaan qaataan bay iska raadiyaan dadka qaarna markii marxalad dhacaysa ay arkaan yaa waxay su'aalaha u soo sawiraan adiga orintaadu waa qaab nooca ana walaal orinteedu waxay u badan tahay ana wax iskama curiyo markaan arko wax sawir dhaba halkaan baan wax ka sameeyaa marka isugu toostoosa dhan midhaha isku hagaajiyo markaas ku saaray waxaan arkay adoo majaajileysta ah oo majaajilooyin shacabka ah sameynaya way jirtaa bal majaajilooyinkooda majaajilooyinkaan maxaa ka mid majaajilooyinka wallahi waa adigu way fara badan yihiin kugu qasabnimada kugu saameynta adoo meel socda aragto madaxa soo dhaca ma mid anigu aan leeyahay mise dadka kale markaan daawado miya marka adigu ku ahsan wallahi qof horta wuxuu sameeyay saameyn saas kuma yeeshaan inta badan okay abuu armaajo adigu waxa tahay ka qosliyan dadka qosliyan ani maxaa ka qosliyan anigu wallahi horta waxaan ku qoslaa majaajileystoyin fara badan oo Soomaaliyeed haday ahaato kuwii hore xilligii dawladii iyo kuwa hadda jiro dambaba oo iminka dhalinyaro badan oo soo cambaxday waan daawadaa waan ku qasbaa sida sooran iyo jawaan oo kale inta badan waa xiiseeyaa waa daawada iyaga adiga sooran iyo jawaan kale okay abwaan armaajo waxa jira geerar kale oo aad tirisay ama gobol yiraahdo oo yiraahdo safar hay fansina safar dirista tan iyadu hees bay noqonaysaa sax iyadana waxaan tiriyay bishan imkaan ku jiray 8 waaga tan tiri waa safar marka waa safar baa la magaceeyo marka waxay dhahaysay Soomaaliya dhamaantiin inta samaha jecelo
safar baan u baxayaa sabtidaan baxayaa suudaan baan tegayaa saxaaraan marayaa marka halkaasi waa saddex qaybood bay baashu kala tilmaamaysaa qayb waa markaan safarka u baxay iyo markaan safarkii tegey waxaan ku soo arkay meeshaan tegey qaybta kale waxay dhahaysaa iyaduna socdaal dheer ayaan galay saxaarihiina waan tegey sawirkaan ka haystiyo sidaan rabayna may noqon gabdhaa suurad waxaanoo soomaali dhalada si xun loo gelayaa mana saacideeyo anigay silsilad iyo sawaariiqa oloshiyo sunbay igu garaaceen saatir waxaan baryayaa salaadaan tukanayaa sunnahaan ku darayaa igaa samata bixiyo sidii khayrna noo yeel sidii khayrna noo yeel sidii khayr noo yeel sidii khayr leh sidii wanaag ku jiro noo yeel oo meeshan dhibka weli way socotaa maasadu marka sidii khayr noo yeel sidii khayr noo yeel silic iyo dhib waan maray haddaa waxaan ku suganahay soomaaliyaan imi sanaag baan ku noolahay sagal baan ku guursaday halkaas ku soo aduu marka hore waan tahriibay waxaan saxariyo tahriibay waxaan wax waan moodi meeshii waan tagay ana safarka u galay dhib baan ku arkay gabdho Soomaaliyeed oo qurux badan oo iska rafaadinayo marka meeshii in muddo waxaan ku jiraa Soomaaliya u laabtay waan guursadayo dhibkii waa ka bax marka taariikh qaybkana aan Soomaaliya Soomaaliya dhaw mar maasadaasi ayaa ugu dambeysay barnaamijkeena Fankiga Suugaanta oo kala socoteen qaran TV oo inala socod oo martii noogu ahaa Abwaan Armaajo inala socodsiinaya anigoo ahaa Fakada Maxamed Axmed tan iyo kulanteena dhammaan waxaan kaga tegaynaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh